kulantisan saaxiibayaal meel walba daafaha caalamka aad ka joogtaan kusoo dhawaada wararka Soomaalida iyo YouTube channel-keena. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dagaalo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, qorqor oo digniin u diray culimada hubeysan ee Ahlus Sunna, beesha caalamka oo ka hadashay doorashooyinka ka dhacay Puntland, iyo taliyaha ciidanka xoogga oo kulamo gaargaar ah la yeeshay odayaasha dhaqanka ee Guraceel. Intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon ee wararka Soomaalida iyo YouTube channel-keena Captain K. Fadlan daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay subscribe dhe gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha u horeeya ee hela wararka iyo warbixinadeena. Like-na saar si uu muuqaalkan dad badan u gaaro. Wixii ra'yi ahna qaybta commentiga noogu reeb. Mahadsanidin. Aynu ku bilownay dagaalo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Dagaaladan oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxa ay ka kala dhaceen deegaanada Kulbiyo iyo Taabt oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee maamulka Jubbaland. Dagaaladan ayaa waxa ay ka dambeeyeen kadib markii xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerareen saldhigyo ay ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM ku leeyihiin deegaanada Taabt iyo Kulbiyo. Waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la iskula adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Dadka ku nool deegaanada Taabt iyo Kulbiyo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac, sidoo kalena uu jiro khasaare ka dhashay dagaalka ka soo gaaray labada dhinac iyo dad rayid ah. Dadka waxa ay sheegeen inay cabsi ballaaran soo wajahday intii uu dagaalka socday, maadaama ay ka baqdin qabeen in waxyeelo ka soo gaarto dagaalka. Saraakiisha ciidamada Kenya ee gobolka Jubbada Hoose ayaan wax faahfaahin ah weli ka bixin weeraradaasi, hase yeeshee dhowr jeer ayay Al-Shabaab weerareen saldhigyada ciidamada Kenya ee gobolka Jubbada Hoose. Dhanka kalena madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa fariin adag u diray ururka hubeysan ee Ahlus Sunna. Madaxweynaha Galmudug ayaa sheegay in kooxdan hubeysan aysan ka aqbali doonin inay gorgortan siyaasadeed lala galo, waxaana ugu baaqay culimada Ahlus Sunna ee hadda ku sugan deegaanka Boqol inay hubka dhigaan oo ay dhinac ka raacaan dadkooda. Madaxweynaha ayaa sidoo kale tallaabadii militari ee la qaaday ku tilmaamay mid deegaanka oo dhan loogu badbaadiyay isku day jabhad hubeysan ku dooneysay inay xukunka ku qabsadaan. Dhinaca kalena taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa kulamo gaargaar ah la yeeshay odayaasha dhaqanka Guraceel. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odawa Yuusuf Raagi oo ay weheliyaan taliyaha guutada 15aad iyo taliyaha qaybta 21aad ayaa la kulmay odayaasha iyo waxgaradka reer Guraceel oo ay ka wada hadleen hawsha ciidanka qalabka sida ay ku wadaan deegaanka iyo guulaha laga soo hoyay howlgalladii ugu dambeeyay ee dib gacanta loogu soo celiyay dowladda, taasi oo sida waxgaradka ay sheegeen soo afjartay hubanti la'aantii amniga ee bulshada soo wajahday. Generaal Odawa taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa reer Guraceel ku bogaadiyay shaqada adag ay la qabteen ciidanka qaranka iyo kuwa maamulka Galmudug muddadii uu socday dagaalkii Guraceel, isagoo tilmaamay in hawshaasi qayb ka ahayd waajibaadka ciidanku u xil saaran yahay ee isugu jira ilaalinta xuduudaha iyo ka hortagidda cadowga gudaha iyo kan dibaddaba. Waxgaradka reer Guraceel ee la kulmay taliyaha xoogga iyo saraakiisha kale goobta ku wareejiyay 10 neef oo geel ah, raashin iyo cabitaano ay ugu talagaleen dhiirigelinta ciidanka amniga. Gudoomiyaha Guraceel Anis Cabdi Macalin ayaa ballan qaaday in bulshada uu hogaamiyo ay sii wadi doonto taageerida ciidanka. Generaal Cabdi Jaamac Maxamed Cigaal taliyaha qaybta 21aad ee ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa ugu mahadceliyay kadibna carabka ku adkeeyay inay weli ku jiraan ciidamadu heegan ayna ka jawaabi doonaan in la hubiyo kala diridda kooxda hubeysan ee laga saaray magaalada Guraceel. Dhinaca kalena beesha caalamka ayaa ka hadashay doorashooyinka ka dhacay Puntland iyadoo ay si nabad ah ay ugu soo gabagabooday codbixintii ku dhawaaqista natiijada horudhaca ee hanaanka doorashada hal qof iyo hal cod ee 3 degmo oo ka tirsan Puntland. Saaxiibada beesha caalamku waxay soo dhaweynayaan xamaasadda ay muujiyeen shacabka ku dhaqan degmooyinka Qardho, Eyl iyo Ufayn sida ka muuqata tirada badan ee codbixiyaasha ah ee soo baxay. Waxaan rajaynaynaa dhamaystirka diiwaangelinta codbixiyaasha dheeraadka iyo soo saarista doorashooyinka dowladaha hoose ee guud ahaan dowlad goboleedka Puntland sanadka 2021. Guushan dhiirigelinta leh ayaa muujinaysa suurtagalnimada in doorasho guud ay ka dhacdo Soomaaliya. Saaxiibada beesha caalamku waxay hoosta ka xariiqeen sida ay uga go'an tahay inay ka taageeraan doorashooyinka marka ay dhacayaan heer deegaan, heer gobol iyo heer qaran oo dalka oo dhan ah. Koonfur Galbeed ayaa war ka soo saartay abaaraha ka jira deegaanadeeda.
Wasaaradaha Arrimaha Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay xaaladaha arrimaha bini'aadantinimo ee deegaanada Koonfur Galbeed. Wasaaradda ayaa sheegtay in xaaladda nolosha dadka ay sii adkaanayso. Warbixinta wasaaradda ayaa hoosta ka xariiqday in qiimaha cuntada daruuriga ah ay sare u kacday, kuna yaraaday suuqyo badan oo ka mid ah degmooyinka hoos yimaada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Warbixintan u dambeysay ay soo saartay ayaa lagu sheegay in tirada dad u baahan gargaarka ee ku nool deegaanada Koonfur Galbeed ay sii kordhayaan. Xaaladda biyo-yaraan ayaa saameysay deegaano badan oo ka mid ah Koonfur Galbeed. Biyo-yaraantaas oo ay saameysay nolosha dadka iyo xoolaha. Ugu dambeynna, warbixinta wasaaradda ayaa ku baaqday in la dardargeliyo adeegyada daruuriga ah u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed si degdeg ahna looga jawaabo xaaladdan adag. Ugu dambeynna, xukuumadda Somaliland ayaa ku dhawaaqday in gobolka Togdheer ka bilaabi doonto musaafiriinta dadka ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya. Taliyaha ciidanka laanta socdaalka gobolka Togdheer Gaashaanle Dhexe Jaamac Maxamed oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa si gaar ah u cambaareeyay in dadka la musaafurinayo ay u badan yihiin deegaanada Waajid iyo Xudur ee Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu sheegay inay diiwaan geliyeen xaddi badan oo dadka ka soo jeeda Koonfurta, isla markaana ay amar ka sugayaan madaxdii loo xilsaaray musaafuriinta dadkaasi. Sida uu sheegay, gobolka Togdheer ayaa noqonaya gobolkii saddexaad ee lagaga dhawaaqo musaafuriinta dadka ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya, kaasi oo markii ugu horeysay horaantii bishan laga bilaabay gobolka Sool. Guud ahaan waa naga intaa wararka Soomaalida ee aad ka daawanayseen YouTube channel-keena Captain K. Tan iyo war mid ka lacayna intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.